السلام عليكم. muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa talooyin noloshaada wax ka bedeli doona. Waana muuqaal dhanka dhiirigelinta la xiriira, khaasatan dadka hore ka quusta ama hore iska dhiiba, ama qofkaas uu xabaranayo ama ganacsiga ku jiro iyo wixii la halmaalaba. Waxaan soo xiganaya xikmado run ahaantii mug iyo miisaan leh. Xikmadda ugu horeysa waxayna oranaysaa nothing worse while is gaining worth sacrifice. wax muhiim ah wax loo qurin lamaba helo. يعني waxa muhiimka ah doonayso inaad hesho ama waxa aad doonayso inaad barato waa inaad geliso waqti, waa inaad geliso dhaqaale, waa inaad geliso energy, waa inaad geliso fakar thinking. intaba in aad gelin karto hadii inta waxa aad geliso inaad baranayso ama inaad ganacsiga ka midho dhalanayso ama shaqada wala shaqooyi. xikmadda labaad waxayna oranaysaa discipline is the bridge between goals and accomplishment. ahdaaftaada aad doonayso inaad gaadho iyo xaqiijintooda bridge-ka u dhaxeeyay waa discipline. waa inaad naftaada ka adkaato, raacdo ruleska iyo xeerarka, naftaadana aad oran karto it is not over until I win. ma ay dhammaan ilaa ma ay aan guulaysto. waad xaqiijin karaysaa discipline waa inaad yeelato. tusaale dhanka luqadda Englishta haddaan soo qaato, Soomaalidana waxa aadka isugu dhiban yihiin waa dhanka discipline. ardaygu wuu bilaabayaa, ardaygu marka uu bilaabo naftiisa inuu xakameeyo on time mar walba ahaado, dadaal badan muujiyo, way ku adagta ama arday yar ha ahaado ama mid weyn ha. xikmadda saddexaad waxay la hadlaysaa dadka hore ka quusta ama hore iska dhiiba. waana xikmaddan when you feel like quitting, remember buying is temporary and greatness lasts forever. aad dareento inaad wax iska daynayso ama aad joojinayso aad waday, xasuuso xanuunka ama dhibta waxa aad kala kulanto. waayo qof markuu dhibaato la kulmo wixii ku yar dhibaato iska daaya. يعني ساعات marka isaga deynin xasuuso in dhibaatada iyo xanuunku waqti yar kooban yahay aan waxa ku yar dhibaatoonayso laakiin achieve ku waaro. waayo wakan kule greatness lasts forever. achieve ka waaray dhibaato arday tusaale wax baranaya u samir, dhibka la kulmayso waligu ganaaxi wax la doonayo waqtigeeda timaado, wax la doonayo inaad juhdi dheeraad ku bixiso, tartama jiri kara, marar lagu dhaleecaynayaba jiri doonto, marar aad fashilmayso, waxaas uu jiraya. laakiin waa inaad samir u lahaato adigoo xasuusan haddaad ku samirto intan inaad gaarayso achieve-ka. waayo qof kasta oo maanta nolosha wax weyn xaqiijiyay waa qof kasta oo ku soo samray dhibaato ama carqaladda waxaas u leeyahay. xikmaddeena afraad waxay la hadlaysaa quusta. ee ka hor iska deyn buu ahaa, laakiin dadka quustaba iyo markiiba quusta, dadka markiiba hore ka quusta. xikmaddan waxay oranaysaa markaa you feel like giving up, remember why you started. marka aad dareento in aad quusanayso, xasuuso waxa aad u bilowday waxaan. remember why you started. way waxaan weynaad hadaf ku bilaabayso, ama ganacsi ahaado ama waxbarasho ha ahaado, tusaale cilmigii computerka oo kala baranay, ama caafimaadkii ama luqadda Englishta. dii waa inaad hadaf ku bilaabayso, waa inaad ogtahay kullaba in culays iyo dhibaatooyin iman karaan, laakiin waa inaad ka gudbi karto family problem baa iman karaan, dhibaato family baa kugu iman karta, dhibaato dhaqaalaha kugu iman kara. waa inaad ogsoontahay waxyaabahaas oo dhan. xasuuso markaas sababtaad u bilowday. sidoo kale weliba waxa la yidhahdaa qofku inuu xasuusto dadkii yidhi waxaan kama midhalin kartid waxaan. waayo kulleyba lama waayo qof dhanka xun ka fikera uu kelmaddaa ku yidhaahdo wuxuu ahaadaba dee u xaqiiji. dad laakiin dhexda kusoo fashilanto waa mushkilad. haddii xataa wax kugu adkaadaan qaabkan ka bedelo qaab kale u bedel. waayo halkay ka yidhaahdaan ha bedelin hadafkaaga, laakiin qorshaha bedel, qorshahaad ku socoto bedel isaga. xikmaddeena u dambaysa iyadu laba ikhtiyaar baad leedahay bay ku oranaysaa. labada ikhtiyaar waa inaad mid kunun doorato. everyone must choose one of two pains, the pain of discipline or the pain of regret. qof kastaaba waa inuu laba xanuun ama laba dhibaato midun doorto. xanuunka uu qofku dhibaabaha dareemayo ee ah in qofku inuu dadaal badan sameeyo, haddii wax baranayo, haddii uu ganacsi ku jiro iyo wixii la halmaalo, dadaal badan oo xanuun iyo dhib leh. haddii kala dooro mid ka qoomamada iyo ciilka ee regret. waayo hadda jawi baad iska qaadan kartaa, waad iska raaxaysan kartaa. xanuunka qoomamada iyo ciilka inaad hadhow ka qoomamayso dadaalkaad samayn kari weyday ama waxaad dhexda uga tagtay oo aad tiraahdo wallaahi hebel mar baan wada bilowna waxbarashada waa halkaa wax marinaya, alle hebel mar baan ganacsiga wada bilowna ama ganacsiga uu ku dhaco go'aan buu yeeshay laakiin anigu waan wadi kari waayo. oo shee
kaa qoomadii ciilkuna waa midaan harin marka intaad kaa dooran lahayd dee kan hore u adkayso Soomaalideennuna waxay iska jeceshay jawi yaroo degan laakiin muhiimadu waxa weeye tacab bacdu raaxa dadaal ka bacdina dalka ay helaysaa way marka qaybta commentiga igu reeb labada xanuunka aad dooranayso ka qoomamadii ciilkii aan harin iyo kaa kale ah xanuunka wax qabadka iyo shaqadu leedahay ama waxbarashaha ama shaqaha gabagabada iyo gunaanadka muuqaalkan la wadaag qof kastoo aad jeceshahay inuu horumar gaaro oo aad dhiiri geliso sidoo kale muuqaalka inoo like gare